السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام يا لما والله سوماليات ميل بوجوتان يسير بدين مقلسان بودين سلام يا waxaan doonayaa in muuqaalkan aan bal ku analyze gareeyo laba arrimood oo hadda ku ugu dambeeyay waxaan ka hadli doonaa qadiyada gobolka Gedo magacaabista Axmed Madoobe u magacaabay maxaa ka dhalan kara iyo arrimahaasi ayaan doonayaa inaan si qoto dheer oo aragti leh aan u falanqeeyo ayadoo cadiifad emotion badan aysan ku jirinin oo facts and figures waxaan kaloo aan analysis ku sameyn doonaa xaaladii ugu dambeysay dagaalkii SSC oo hadda runtii ku sii fiday caalamka go'aankii ka soo baxay qaramada midoobay sababta uu dagaalku la yara joogsaday arrimahaasna waxaan doonayaa bal inaan isku xiro si aan aragtida kaga siiyo soo dhawaada meel walba oo ay joogtaan iyo si walba oo maqlaysaanba haddii aan arrinta gobolka Gedo aan ku bilaabo magacaabista Axmed Madoobe magacaabay waraaqdana ku magacaabay maamul cusub oo gobolka Gedo ka shaqeyn doona arrinta maxaa ka dhalan doona mase shaqeyn karaan weeye meesha aynu ka bilaabayno markii aad si dhab ah u fiiriso cadiifad lahayn magacaabistaasi laba arrimood mid ba ka dhalan doonta mid walba goonida la istaagi doona marka hore waxaa ka dhalan doonta in magacaabista Axmed Madoobe uu magacaabay maamulkaani ay noqdaan mid waraaqda ku kooban maamulka iyo dadkaasi uu soo magacaabay shakhsiyaadkaana la yiraahdo ma soo gali karaan gobolka Gedo sida marar hore dhacday oo kale inta marka waa mid وأنا أحاطه إن مجابستو أحاطه ميت كوكوبن فرينتي أحمد مدوبي وعيد كلا إنسان كلا كاشن هذا مركب فرينت أسرع أحمد مدوبي كوجار تحي مرة هورن وسميه وإحنا ما إنسان شقينين هذا سيدي بنقطة دونتا وح زيادة أما كيد دونتا قلب كلامات وإن مجابست ثاني فرينت هدو وحسن الشيخ محمد قيب كي هي سلام مركز ودون إن وضوّل باللامرة إن عيدا مضى قبل كجدد شوجا دولة ده كم شرقاتها marka la isku dayo inay si xoog ah ay maamulkaasi gobolka Gedo ay ku geeyaan garoomada ay uga soo dajiyaan qodobkaasna waa qodob kale qodobkan dambe Xasan inuu isku dayo inuu fulintaasi qayb ka noqdo oo awood la isticmaal la isku dayo waa qodob khatar ah waxyaalaha aan isleeyahay way imaan karayaan til isku dayo in Xasan Sheekh Maxamuud yiraahdo fulinta ciidanka baan qayb ka noqonaya ilaa afar la isha waxyaalood ayaa ii muuqda ahna waxa gobolka iyo deegaankaasi yaala kana imaadon arrintaasi mid ugu horeysa in ciidanka saraakiishiisa Xasan Tuula hadda la soo dajiyay nimankan ama la isku dayo inay xoog ku shaqeeyaan waxay kala qaybin doontaa ciidanka gobolka jooga kuwa mushaarka dawladda ka qaata iyo kuwa badan oo ayaga ama ka fara badan ama leeg aan mushaarna qaadanin dalka jooga ciidan qabaa'il ah wayna kala qaybsami doonaan wayna dagaalami doonaan arkaysan dagaalkaas yaa guuleysan doona xageebu ka bilaaban doona oo bisala kala way laakiin ciidanku kuma heshiinayaan waliba ilaa ay waxaan oran karayaa majority goodu ma ogolaanayaan qof Axmed Madoobe ka socda inuu gobolkan yimaado Xasanna kama yeelayaan cid kale kama yeelayaan waana lagu dagaalamayaa waliba majority-ga kuwa diidan saraakiisha ciidanka ayaa fara badan waxa sidoo kale qodobka labaad ah oo imaan doona hadii sida la isku dayo niman badan oo saraakiil oo gobolkan u dhashay iyo qaar jooga oo ayaamii ugu dambeeyay siyaasadda retire ka ahaa oo ka nastay dagaalka iyo maxalida xabadda iyo rabshada oo iska relax gareeraya ayay arrintan shidaal ku shubi doontaa markii ay maqlaan Axmed Madoobe ayaa gacanta loo gelin doona gobolka Gedo arrintaas dhibaato cusub baa ka imaan doonta haddii marka la isku dayo in qajashac iyo xoog lagu keenay Axmed Madoobe cawaaqib xuma ka dhalan doonta arrinta kale oo arkayo waxa weeye inuu Xasan Sheekh Maxamuud talaabada uu qaado uu ka wajihi doono culays siyaasi ah oo caalamkana ka yimaada siyaasiyiinta madax buurta ah ee dalka soo marayna marka oga imaada sidii nimankii hadda ugu dambeeyay ee waraaqda soo qoray sagaalka ha Shariif Sheekh Axmed Cabdiwali maxaa la yiraahdaa nimanka la yiraahdo Cabdulle Cali Gaas Cabdulle Xiirane nimanka ayo dhan iyo niman la mid ah ilaa ay Maxamed Farmaajo nimanka ayo dhan siyaasiyiinta Soomaaliyeed qadiyadan ishay ku hayaan waxayna ku furaysaa Xasan culays siyaasi ah oo uu san qaadi karinin una baahan hadda inuu faraha la galo mid ka weyn midii 27 May uu Xasan isku furay oo kale waxa marka Xasan isugu darsami doona asagoo guul dareysta asagoo magaca dawladda dhexe ee Soomaaliya hadda gobolka Gedo dadku aad uma diidana laakiin waxa imaan doonta in sida midka Jubbaland Gedo looga diiday yahay midka dawladda dhexe looga diido wixii uu Xasan soo dirana gobolka xabad looga saaro
هذا قبل كجد شوجا نمن أبا أحمد دوبة تاجرسن أما إسقار قرية نمن دولة الدحيح سيدا دريمك فرتاج لي سيدا نيك اللي يراه هذا معلمه ويو نمك النوع عايو كلا تا حسن ما صاحب لنا هاي رجدنا وانها أحمد دوبة صاحب لنا هاي رجدنا وانها نمك سيدا أول لبع اللي سياسة ضد نمن بدن والله بدنا دات يحن بدا قاعد دونا قول كان حبط باللغة سعيد دونا أركيسا أرنت أمريكا conclusion كده ووضل يقالوا غير قدو ما أقبليان أحمد مدوبة يعيد كسعته أما حسن صور راعو عيد كلا صور راعو خدو حسن تلابدا قاتنا وحي كفر دونا قاند انت وقت جيسمان ديت كحرت حسن كفر ناته أيوس كفر دونا هذا مدي بوتلاب فرنت هذا مدي SSC فرنت هاي كوكلا بدن بافرن وقبيل قد يدان إن لا فرا حسن وقت بدن يدقال بدن بيك قاعد دونتا mana ahan qadid u soo dhameystiri karayo mana doonayaan reer gado Axmed Madoobe iyo Xasan midna qodobka halkaas soo baxaya arinta SSC runtii way baahday dagaalkii awal dadku inta ugu badan waxay ka fiirinayeen in dagaalku uu yahay dagaal xabad ah gooja cadalis hor fadhiya ciidan baa yimaaday aragtida inta ugu badan aynu ku fiirinay aragti noocaas ah ay ahayd laakiin hadda aragtida intii way ka weynaataa waxyaalo badan baa lagu dagaalamaya waxa lagu dagaalamaya siyaasad baa hadda lagu dagaalamaya waxa lagu dagaalamaya dhaqaale ayaa lagu dagaalamaya waxa lagu dagaalamaya xabadna waa lagu dagaalamaya waa is hor fadhiya mid walba waxay leedahay saameynteeda iyo waxay leedahay ka shaqaynteeda iyo furinteeda dagaalna way leedahay mid baan u dul istaagayna markaad fiiriso dagaalka dhanka siyaasadda waxa jira dagaal culus oo ka furan dhanka caalamka iyo dhanka regionkaba aynu deganahayba ka furan oo u dhaxeeya SSC iyo Somaliland baa jira waad ogeydeen Ethiopia ayaa marad furtay shir qaramada midoobay waad Djibouti faraha kula jirta waad dawladda dhexdhexaad isku daysay inay noqoto deegaanka aynu deganahay ee geeska Afrika oo dhan qadiyadani already dab weyn bay gelisay markaysan qaramada midoobay iyo dawladaha reer galbeedka awoodda leh gooni bay cid walba maqaamkeeda iyo go'aankeeda uga hadasha ويجي لصادع فاتيان انتو سيء واليس أو كهذا سيء إنجليز كهرو كهذا مريكان بكهذا عيد والباب جوري بيوجه هذا الشيء هذا مركا دجال كي سياسي هاي عالم كلوجود دجال مية سمر كاسي لو كات كادو هذي لو كات كان يو حلا دجال كاني سياسة لو كات كاني بحوي إن قلا عنا قبض تيجو إن قلا بحال يرادا محكمة الصوص صاروا أريمة حاسوية وحلاك درين يو لو كات كاني بحب وقت مركا إن SSC دو كجا أتكاتي Somaliland دجال كسياسة دا عالم كذا كجا أتكاتي قرابة مدوبي شلو راح دا إساق قرتي هي أحيد براق رنتي وين أو معنا بدل كتير بي أحيد هيالها كو يلا بدا عندونه يو إن كسوق عطوا حكم ده أو موتشنا يا Somaliland دال كان لغة أتكاتي إن حتى مجد Somaliland مركا quotation للجلية أو شكل للجلية مركزا Somaliland نمك لوجيه عم سويه رأي أو كلا أي أودي كان تحيا دي مجا عاجا لبدا جيس لجليو quotation أيام تورس ميس أورنجين قرن بدنا مدوي Somaliland عادي بأورنجين حاليا مركا قاركو دي راعيان محلي هذا دولة دا إسكت سكون مجا عوضي براعينجين لكن هذا مجا بالجلية حتى مجا حلو يقانو SSC أو كلا ما يصير جلينين quotation لكن متك Somaliland quotation بالجلي تصاب موجنا يسا إن يسمع أقون سنين حتى administration عادية وSomaliland لينا وحيالها كلا أو أي شيئين والله ياب كلا أيضا وحكم ده إن موسى كو قصبان أما إيراني وين سيد دق عاد عيدا كعب ولا بحدا وحي كانوا شيئين إن أي عاد أوجا حنيجين كانت تحسدين يان كانوا حنيجين دتكي بنام بحياشة هاي اللي قول هي ديسمبر مجال الأسعانات قيب حوس أو باراجراف وحي شيئين إن لا حساب تبي دونه وعن لجهر دونن شرعي عالمي أنا لا تيك سد دونه محل هذا عيد والبه أو كل حد قدبته شرعي قاسي هذا الكباراجراف كهوري باراجراف كان دبرة ويسترشميان وحنا كسر عن موسى ومعناه ذو يهي وحي الجيستي ولي بقى أي واحد كي هيستان وقت كي بنا بحياش هاي دور لا تنقف هاي للايو ديسمبر dadka dagaalka ku dhintay iyo kuwa wali hawshooda uma sabicin marka in qaramada midoobe marka ay sida meel cad uga istaagto qadiyadani waxay dhabar jab ku tahay Muuse waxayna meesha ka saaraysaa riyadii Muuse uu waday ahayd inta aan ka bixin goosha cadde waa in odayaashu ila fariistaan si marka loo yiraahdo agreement baynu galnay hadhowna inta mar labaad dib la isku soo abaabulo la sacaanada soo weerar ayadoo leeyahay waxay ka bixin agreement-igi markaysa marka qodobkaas waa dhanka siyaasadda oo lagu dagaalamay
waxaana moodaa inay hadda ree laascaanood ree SSC ay ku wanaagsan yihiin dhanka kale dhaqaalaha waa lagu dagaalamaya waa is cuna qabateynaya kooxba kooxda kaleeto dhaqaalaheeda ishay ku haysaa haddii la arko koox sida Somaliland oo tusaale oo kale cuna qabateen adag baa lagu sameeyay dhaqaalaheedana aad baa loo wiiq baabuur badan oo koonfurta ka tagi jirtay oo dhaqaale ku siyaadin jirtay waa la xiraa dekada berbera deegaan badan oo Soomaali galbeed ahaa oo ay maxaa la yiraahdaa ay alaabta ka iibsan jireen ama la geyn jiray hoos baa loo dhigay maadaama ay degan yihiin reero Soomaaliyeed oo ay isxigaan ree SSC markaas waa laga wareegay dhankan qaracad baa loo wareegay waxyaalo badan baa ku dhacay qaramada midoobay waxay ka jareen iyo beesha caalamka dhacay la siin jiray Somaliland kadib markii ay sameeyeen arrimo ka dhana xuquuqda bini'aadamka soo marka dhanka dhaqaalaha waa lagu dagaalamaya sababta ugu weyn oo ay garaadadu mar walbaba shirarka u tagayaan ola shariya beesha caalamka hadda muqdisho u joogan waxa weeye inay markaas ayagu ay ka badbaadaan in ama cuna qabateen la siiyo ama la cuna qabateeyo ama dhaqaalaha ay saamiga u leeyihiin oo ay ku helayaan magaca Soomaaliyeed inay qaybtooda helaan oo aysan ku cayaarinin oo aysan noqon sida Musabixi nin madax adag oo aan markaa lahayn position xaq uu ku dagaalamayo ayagu position kooda jooga ay la fariisanayaan kala naqaashayaan wixii ay doonaan siinayaan haddana waxa la sameyn doonaa loo process garanaya sida xogaha ku helay in la siiyo deeqii caalamiga oo loo fasaxo xasanna waa laga hadlay ayagana xalay kula shireen qodobkana marka waa dhanka dhaqaalaha iyo guulaha laga gaaray finally dhanka ciidanka ayadana waa lagu dagaalamaya wali waa is hor fadhiya waxa kale oo ka muuqata SSC in maxaa la yiraahdaa ay ku dul dhismayaan maxaa la yiraahdaa dagaalkan markaysan ayagoo iska difaacaya oo gooja cad iyo meel walbaba hor fadhiya oo ku guuleystay inay xakameeyaan qatar walba Somaliland ka imaanayso ayay haddana dhismayaan oo say u dhismayaan ciidan bay ayay u dhismayaan hub bay la imaanayaan baabuur bay la imaanayaan ciidan bay taabarnayaan by the time ay dagaalkani uu dhamaado iyo haddii hadda xataa ay baxaan mar dhow waxa ciidan ah harti ka yimaaday wali awoodda ay sadisteen dhowrkii beelo soo dhaafay SSC waa awood ku filan Somaliland cid kale uma baxna markaysa haddii xataa iska wada baxaan nimankaanu muddo yar kadib waxay SSC noqonaysaa maamul weyn oo ilaa iyo dhowr 20,000 ama 30,000 ciidan markaasi haysta maalinka ugu yartahay ama asbuuci ugu yartahay dhowr kun oo wiil ama dhowr boqol oo wiil ayaa soo baxaysa oo ka soo baxaysa xarumaha lagu training gareeyo maalin waxay la imaanayaan hub iyo waxay soo iibsanayaan baabuur marka way ku dul dhismayaan markaysan waxay noqon doonaan marka ayadoo dagaalku wali uu soo dhamaanin bay waxay noqon doonaan SSC maamul ciidan awood leh oo meel dhexe oo central laga maamulna leh una barbar dhigi karaya haddii ay ku xataa ay baxaan si aysan mustaqbalka mar labaad u soo laaban marka wayna ku dul dhismayaan dhanka caalamka iyo repetitionka iyo magaca iyo sumcadda ay ku leeyihiin caalamkana way dhisayaan oo nimankaasi garaadada hooseysada falanqeynaya oo la fariisanaya caalamka isla markaasna magacooda dhisayaan marka dagaalkiyo socda ayay kobcaysaa SSC oo ay noqonaysaa maamul goonida u taagan oo dhan walbaba ka dhisan dhan ciidan iyo dhan siyaasadeed iyo dhan dhaqaalaba ka dhisan bay noqonayaan wayna guuleysanayaan intaas aan kusoo koobaya dib soo laaban waxaan ka tagaysaa nabadino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.